أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الرابع، حديث كي أفراد عن أبي عبد الرحمن. أبي عبد الرحمن بالغوري عبد الله مقعيس الذي جري عبد الله بن مسعود wiilkiisa ahaa radiyallahu canhuma, labadoodaba allaha ka raali noqdee. qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu mascuud, xadahanaa waxaa noo sheekeeyey rasuulullaahi, rasuulka ilaahay baa noo warramay oo noo sheekeeyey sala allahu calayhi wasalam. wa huwa rasuulkuna assaadiqu mid runlow ah weeye, almasduuqu ee loo rumeeyo. qaala wuxuu yidhi rasuulku, inna axadakum qofkiin yujmacu waa la kulminayaa khalquhu, abuuritaankiisa waa la kulminayaa, fii badni ummihi, hooyadiis caloosheeda baa lagu kulminayaa. marka qofka asaaskiisa, abuuritaankiisa asaaskiisa baa la kulminayaa, waxaa lagu kulminayaa hooyadiis caloosheeda ayaa lagu kulminayaa, waa riximka ayaa lagu kulminayaa. 40 yowman 40 maalin ayaa la kulminayaa, nudfatan xaal uu yahay mid candhuuf ah. suma markaas kadib yakuunu wuxuu ahaanayaa calaqatan, xinjir buu noqonayaa, mithla daalika intaas oo kale, oo 40 maalin markuu joogo ayuu wuxuu noqonayaa candhuuf. haddana 40kaas maalin oo kale markuu joogo ayuu noqonayaa xinjir, dhiig fadhiya yacni. suma markaas kadib yakuunu wuxuu noqonayaa mudqatan, cad hiliba ama saaftin ayuu noqonayaa, ama cad afgelis, mithla daalika intaas oo kale ayuu noqonayaa, oo 40kii oo kale haddana markuu joogo ayuu wuxuu noqonayaa mudqa ayuu noqonayaa. suma markaas kadib yursalu waa loo soo dirahayaa ilayhi, qofkii waxaa loo soo dirahayaa almalaku, malag ayaa loo soo dirahayaa. fayanfuqu wuu ku afuufayaa malagu fiihi qofkaa dhexdiisa arruuxa, ruuxdii ayuu ku afuufahayaa. wayu'maru waxaa la farhayaa malaga bi4 kalimaatin, 4 kelimo qoritaankooda ayaa la farhayaa. bikatbi risqihi, risqigiisa iyo arsaaqdiisa qoritaankeeda ayaa la farhayaa. wa ajalihi, oo yacni waxa uu cuni lahaa intuu adduunka ku nool yahay qor ayaa la leeyahay. wa ajalihi, ajashiisa qoritaankeeda ayaa la farhayaa, oo waxaa la leeyahay inta cumri uu noolaanahayana qor. wa camalihi, camalkiisa qoritaankiisa ayaa la farhayaa, oo yacni camalka uu camal falahayo, ma camal ahlu jannaa, ma camal ahlu naarba. wa shaqiyun, mid ayaan darsaday inuu yahay, ow amase saciidun, mid liibaana inuu yahay, qoritaankeeda ayaa la farhayaa. mid ayaan darsaday miya oo ahlu naar miya, mise waa mid saciid aho waa ahlu janna, qor baa la leeyahay. fa wallaahi macbuudkii baan ku dhaartay ayuu yidhi rasuulku, alladii macbuudkaasoo laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo kayruhu kayrkiis uusa ahaanine, inna axadakum qofkiin la yacmalu wuu camal falayaa bicamali ahliljannati, ahlu jannaha camalkooda ayuu camal falahayaa. xataa maa yakuuna ilaa uusa ahaanin baynahu shakhsiga dhexdiisa iyo wa baynahaa jannada dhexdeeda ilaa diraacun dhudhun ma ahane. fayasbiqu calayhi, qofka waxaa ka hormaraya alkitaabu, kitaabkii ayaa ka hormaraya. fayacmalu wuxuu camal falayaa bicamali ahlinnaari, ahlu naarka camalkoodii ayuu camal falahayaa. fayadkhulahaa, naartii ayuu galahayaa, walciyaadu billaah. marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofkiin wuxuu camal falayaa camalu ahliljanna. markuu camal falo ilaa adugu wuxuu camal falayaa heer uu gaaro jannadii asagu wax yar inay u kala dhexeeyaan. kitaabkii baa marka ka hormarahaya, yacni qofku wuxuu ku dadaalahayay camal ahlu janno inuu camal falo. marka kitaabkii baa ka hormaraya, marka kitaabkii loo qoray fii badni ummi, hooyadiis caloosheeda markuu ku jiray ayaa ka hormarahaya. markaasuu wuxuu camal falayaa camalu ahli naar, sidaasuna naartii ku galahayaa. wa inna axadakum qofkiin la yacmalu wuu camal falayaa bicamali ahlinnaari, ahlu naarka camalkoodu camal falahayaa. xataa maa yakuuna ilaa aysan ka ahaanin baynahu asaga dhexdiisa, shakhsiga dhexdiisa iyo wa baynahaa naarta dhexdeeda ilaa diraacun dhudhun ma ahane. fayasbiqu calayhi waxaa ka hormarahaya alkitaabu, kitaabkiibaa ka hormarahaya.
فيعمل وحو عمل فلايا بعمل أهل الجنة أهل الجنة عمل كودو عمل فلايا فيدخلها جنة أيو قالها يا قفكو رواه حديث كوحا وريي البخاري إمام بخاري وريي ومسلم إمام مسلم نوري مركا قفنا وحو عمل فلايا عمل كي أهل الجنة كدب كتاب كي بقى أصبقنا هيا وحو عمل فلايا عمل أهل النار ساسو نار تيو قالها هيا قفنا وحو عمل فلايا عمل أهل النار kadib adigu markii khaatumadiisu ay soo dhowdahay ayuu dib ka hagaagaya markaas ayuu wuxuu galayaa jannada marka xadiiska qaybtiisa hore wuxuu rasuulku uga hadlayaa kaleey salaatu wasalaam qofku maraaxisha uu marahayo yaani abuuritaankiisu maraaxisha uu marahayo qaybta dambana waxay ka hadlaysaa khaatumada ayay ka hadlaysaa cashirkeenana intaan ayaan ku joojinaynaa Allahu a'lam fadlan hadii aad nagu cusub tahay channelkan subscribe saar like na saar waxay noo tahay dhiirigelin waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaaladeena